gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee Ucud iyo Wadani oo kulan ku yeeshay xarunta xisbiga Ucud ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ku gacan sayray kulan ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxayna diidmada kulankaasi ku sababeeyeen inaanu madaxweynuhu daacad ka ahayn kulankan ugu baaqay balse uu doonayo inuu meesha kaga saaro gudida dhexdhexaadinta ka dhex wada asxaabta mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumad waxayna sheegeen inaanu kulankan uu madaxweynuhu ugu baaqay waxba kaga duwanayn kulamo hore uu la qaatay waxayna madaxweynaha Soomaaliland ku tilmaameen madaxweynaha aan iswaafaqsanayn qowlka iyo ficilkiisa. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. وطبعاً توقع أنه دولنا أنه كل شوابنون خطبتهم مدحينه كأخريي حفلة دا فريسونك أنا حفلة دا كمان وقيب قليل وحالا وقيب قليل وين وحوي مدحينها إلا ودور الشغل كقبته wax shaqoon la yeelana wada shaqaan la yeelana ma jirto inta waxa weeye horta waxa ugu daran marka qofka madaxda uu afkiisa iyo uurkiisu hadalkiisu yeelan waayo waa masiibo weyn weeye qofka mas'uulka ah ee madaxda ah waa inuu qowlkiisa iyo ficilkiisu siyaasha madaxweyne Muuse labada sano hada dalka hayay خطبته كو أخرية فعل كيسو اسمه هو مدحوين أهرينا صومرة أنا أركنه إنه وحكو هذا يا يوحو سمايك الدوين طور الشدة وحو حلكو كسارية ومسؤولية كو سارنت مدحوينه أصحابتك ما صارني لابد سنة وحن الدورني مدحوينه هاس إنه دور شقبته عمر مرسية كود كردكتي حسب قرى أويلي كمو كلسونين قدي داس هادو مدحوين داعات كده دهور الشدة وقابل لها مدحوين وحنو صميني كونسنشن بدل ما نصميني تناسل سيدو الدونية ما نقول إحدى حالية قدام بينتي بارمان كالو قد بيها ليدي بارمان كو كهورتك بارمان كو كيد ديدي إننا عن شرعي أولى هنا وإلا وحوي لا طريق بارمان كحاجة شرعي ويري صورة قلمها هذا نوع نودو قادنا تيسي بانو قالاني انتو دولا مقعبو لبنا هادو تلو دلو حسب ليين سو دورشد هذا اسكو هرتاغو ايو هذا خيركي جبيو حبن عن شرعي وشيغي ان انا سو غلين خلكا قبن ايو مقعابي marka madaxweynuhu wuxuu taswiirtay qorshe samaysay naftiisa oo ah baarlamaankuna ha kordho guurtuna ha kordho taaduna ha kordho doorashadiisu waxaan u sheegnay madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu isku xidhan yihiin haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo Muuse ma noqonayo ma joogiyo runtaan idin sheegay hadduu doorashadiido dumaraadii way dhimatay talaabooyin kale ma qaadna kursigiisa aan siyahay anagu waxaanu sameynay oo sudna guddi baan isu qabanay guddidaas oo qabanay oo ogolaanay oo mandate siiyay anaguna aan siinay kalsoonidii ayuu saddex arrimo ku dhaqaaqay waxaan tusiyaa inuu daacad yahay koow wuxuu sameeyay guddidii la isku haystay ayuu dhaariyay laba wuxuu sameeyay kordhis baarlamaan oo 2 sanadood joogtiin in la isku haysto saddex wuxuu sameeyay guddidii isdoorta oo gudoomiye ka dhiga xubintii la isku haystay 4 qof ay doorteen 2 qof ay ka hareen taas waxa ku tusisaa inuu Muuse muran u taagan yahay laakiin dalkani muran oo maay waa laga tashanaya dhibaato aan maanta Muuse hena dalkan male daaga Soomaaliland iyo Soomaanta meel looga baqayaa shacabka Soomaaliland sheegaya khatarta Soomaaliland maanta ku eegana waxa weeye Muuse oo hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran iyo garu joog wuxuu yiri waxaan casuumiyaa madaxweyne wuxuu yiri waxaan casuumiyaa labada xusbi waxaan leenahay anagu labadaas sanadood 10 jeer baan madaxweynaha la fadhiistay
وسامر كسر وتودن بيسهاد لحية تكيشون وحفلتي كيري وأنا كل منا وحنا نسوي كصباح حيا حبكم الصباح كل كيس وحنا كصباح حيا متشرد قرب وحنا جايني هير بيوكتان سمعني قد يدل حالة أو حرقة ورئيس مالنا هذا أو اسكوت شرتا ومضي ونن هيك كوبيين كواسان السوقنا موسان واحد دمان ولا فريساننا ونهر تجينا متشرد warsame Saciid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa